مسؤولين كسعة مأمور كدقمة الجرعة يا دقح دقة علبيد متك ولا جهير جلندون الدجان كقيدر وكتر سنقبل الجدود دقح دقة عيال كانوا يدد كالدجان كالدجان هذا كنت السنة يبهوي نقبين وحاو غرين كهذا لقار كم يدد كالدجان كقيدر يجوا هاد علي مأمور كجل مذوب وحاين الشجين إني تران باهي بدن والدجان كجرا كواسي ومأمور كجل مذوب كله جب هاي إنه وحكي قبته دقح دقي أنا ونوحنا هالدقمة قيدر oo hoos tagta guraceel xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku kala rugmadaan kastanka halkaas ayaan joognaa meesha matoorka laga dhex dhigaa waa halkaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa kale oo mahadsan hay'adda leeyahay IAM oo ugu tabarucday in ummadda Soomaaliyeed dibka haysta qaybteeda wax ka fujiyaan annaguna waa ka gudoonay gudoomiyo runtii awshaan wax badan buu ka qaatay door fiican buu ka qaatay mana sahlana in ceel meel laga taago ma sahlana waxaan ugu mahadcelinaynaa isagiyo rakaabka ciidankiisu ku xigeenadiisu shaqadii ay qabteen oo laantood aan qabaneen deegaanka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa si odaynimay sameeyeen waxa nagu xireen male dhulkii way bixiyeen inkastoo dhulku soonad dawlad ay ku jirto meesha tan sidaa darteed aad baad mahadsantihiin waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha degmada Guraceel Faarax Cabdi Macalin oo raxdhiga kadib warbaahinta la hadlay ayaa qurba joogta ka soo jeeda deegaanka Qeydar iyo waliba deegaanada kale ka dalbaday inay ka qayb qaataan horumarada ka socda deegaanka ugu daran ugu yaraan 300 kiiloomitir dad xuduud ka dheer ama dhul ka badan oo aan biyo haysan oo dadku ay aad ugu adkeed nolosha biyaha ayaa meeshan ka taagneed horay dhowr mar ayaan ugu soo laalaabanay codsiyo ayaan sameynay dadaal badan iyo juhdi badan iyo waqti badan oo aan gelinay inay meeshan ceel hesho waxaan ku guuleysanaa maanta in Qeydar laga hirgeliyo ceel biyood ilaah baa ku mahadsan ka sokow waxaan u mahadcelinayaa hay'adda IOM madaxdeeda dhammaan aqyaartii ganacsatadii siyaasiyiintii wasaaradda biyaha galmudug iyo cid walba oo nagala shaqeysay waxaan leenahay waa mahadsantihiin baahidii runtii ka jirtay Qeydarna maanta qayb kamid ah ayaa wax laga qabtay marka waxaan leeyahay cid walba oo kaalin ku lahayd waa uga mahadcelinaynaa ilaah baa ku mahadsan ceelkan wuxuu muhiimad u leeyahay gudaha Itoobiya ilaa xuduudka inta ku teedsan iyo dhinaca Soomaaliya oo asna uu muhiimad kale u leeyahay marka waxaan rajaynayaa dadka deegaankan aan kula dardaarmayaa inay ka faa'iideystaan muhiimadda ceelkan uu leeyahay ayna ilaashadaan waa hanti ayagu ay leeyihiin waa wax reer Qeydar ay leeyihiin dadka deegaankan ay leeyihiin marka inay ilaashadaan ka taxadaraan mas'uuliyadaasna ay safiican ay maxaa la yiraahdaa uga fakaraan hadii ilaahay yiraahdo inta kadib maantay akhyaartan aan isla soconay baraarug iyo dhamaan madaxda culimada iyo safarkan waxaan u soo galnay waa muhiimad ay leedahay Qeydar in ceel loo helo waa nasiib darro iyadoo waqtigan lagu jiro in dad ay biyo la'aan u dhintaan marka in dadaal la sameeyo dadka loo gurmado haday yihiin qurba joogta ka soo jeeda deegaankan especially waxaan rabaa inaan baaqalkan uga jeediyo Qeydar waxa hadda ka hor laga hirgeliyay kastamkii wasaaradda maaliyadda ama galmudug waxa sidoo kale ka dhisan ama halkan ku yaala waad aragteen borderkii ama meeshii laga soo galay xuduudka oo ay degan yihiin hay'adda socdaalka jinsadaha Soomaaliya waa bar u astaysan in la gaarsiiyo horumar wanaagsan waxaan ku guuleysanay halkan inuu ka hirgalo iskuulkii waxbarashada oo runtii halkan asna muhiim u ahay meeshan marka iimaanayna waxaas oo dhan kama jirin waxaan sidoo kale keenay oo ayadana aan uga mahadcelinahay Hormuud inay naga aqbashay inay isgaarsiintii keento halkan